tobankii Maaj 1879 ayuu ku dhashay dalka Jarmalka, waxaana uu door lixaad ku yeeshay horumarintii aragtiyo badan oo cilmi ah, kuwa oo wax u taray culumta sayniska iyo xisaabta ee casriyadii dambe. Albert Einstein waxa uu ahaa theoretical physicist oo weynuhu ku kaalmeeyey maskaxuu ku kasbaday in qof walba oo dunida korkeeda saaran magaciisa maqlo. falowdha haddaad boggan ku cusub tahay, muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhowow 8 xaqiiqo ee aynu Albert Einstein kaaga warinayno. 1. Einstein iskuulka kuma fiicnayn. oo cid walba ayaa la yaabaysa sida uusan iskuulka ugu fiicnayn, ka aynu sheegnay inuu dunida uga yaabsaday xisaabta iyo sayniska. ha yeeshee sida xoguhu wariyeen, Albert waxa uu ahaa mid aan xiiso u hayn dhammaan maadooyinka iskuulka ka baxa marka laga reebo hal mid, taa oo ahayd maaddada xisaabta, waana maaddada uu ugu fiicnaa, yacni cid walba kaga fiicnaa. waxaana la sheegay inuu iskuulka ka haray isagoo 15 sano jir ah, isla markaana isaga tegey dalka Jarmalka oo dhan, waxaana uu goortaa ka baxsanayay shaqada qaran ee ciidamada oo ay khasab ahayd waagaas in arday walba maro. ha yeeshee macallimiintiisii waxa ay sheegeen inuu ahaa qofka iskuulka ugu sarreeya maaddada xisaabta marka ay joogto. 2. qorrax madoobaadkii caanka ka dhigay Einstein. waa maangal inaadan fahmin ciwaanka aynu ku siinay, ha yeeshee inaan aniga iyo adiguba baranno Einstein waxaa sabab u ahaa curintiisii aragtida General Relativity-ga ee uu soo bandhigay 1915, taa oo sharaxaysay sida uu u dhaco qorrax madoobaadku, waxaana uu goortaas ku micneeyey in qallooc uu sababo cufisjidadku uu yahay sababta ugu weyn ee qorrax madoobaadka. ha yeeshee ilaa bishii May ee 1919 aragtidan waa lagu muransanaa. ha yeeshee waxaa goortaas u markhaanti furay Einstein erbixiyeen Ingiriis ahaa oo la odhan jiray Arthur Eddington, oo inta ku safray xeebta Afrikada galbeed sawiray qorrax madoobaadka. dabeedna baaristii uu ku sameeyey sawirradaas ayaa muujiyey inay saxan tahay aragtida Albert. jaraa'idadii adduunka ugu caansanaa ayaana isla goortaas fikradda Einstein dunida gaarsiiyey, taa oo Albert ka dhigtay mid ka caansan xitaa saynisyahankii Sir Isaac Newton ee hortiis dunida haystay. 3. doorkiisii kaalmaynta aadanaha. Albert Einstein waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa kaalintiisii caawinta dadka dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ahi waxyeeleeyaan, gaar ahaan dadkii dhibaatadu ka soo gaartay dagaalkii labaad ee adduunka, oo uu gargaarkooda kaalin xooggan ka qaatay. hay-adda lagu magacaabo IRC International Rescue Committee oo uu isagu fikradda asaaskeeda lahaa 1933 ayaa ah dhaxalka ugu weyn ee uu ka tegey marka laga hadlayo caawintiisii aadanaha. 4. mar ayaa loo soo jeediyey inuu noqdo madaxweynaha Israa'iil. Albert Einstein asal ahaan waxa uu ahaa Jewish ama Yuhuud, caqiido ahaanna Judaismka ayuu haystay sida taariikhdu warisay. labada arrimood ayaana ku riixay inuu isagu xiriir dhow la lahaa Yuhuudda, waxaana uu u ololayn jiray joojinta Yuhuud nacaybka. ha yeeshee markii uu dhintay madaxii xukuumaddii Yuhuudda James Weizmann 1952, waxaa isla nidaamkii ka talinaya Israa'iil Einstein ka codsadeen inuu noqdo madaxweynaha xiga ee nidaamkaas, isla goortaana ay magacaabaan. ha yeeshee waa uu diiday, waxaana uu yidhi noloshayda oo dhan waxaan ka shaqaynayay waxyaabo ujeeddo cad leh, taa oo macnaheedu ahaa inuu diiday ka shaqaynta siyaasadda. 5. xaaskiisa ayuu u ballan qaaday lacagta biladii Nobel Prize-ka xitaa isagoo aan weli ku guulaysan. intii lagu guda jiray saxiixa waraaqihii furiinka ee isaga iyo xaaskiisii koowaad 1919, Einstein waxa uu xaaskiisa uu furay u ballan qaaday inuu siin doono lacagta la socota biladda Nobel Prize-ka oo markaa xilliga uu ku guulaysanayay ay ka dhimanayd 2 sano. xaaskiisa lafteedu arrintaas welwel kama qabin, waayo waxay ogayd inuu Einstein yahay qofka ugu mudan ee biladda ku guulaysan kara. ugu dambayn waa uu fuliyey ballanqaadkiisii kadib markii uu ku guulaystay 1921 Nobel Prize-ka fiisigiska. 6. waa la xaday maskaxda Einstein kadib geeridiisii. Albert waxa uu dhintay Abriil 1955, ha yeeshee waxaa laga saaray oo la kaydiyey maskaxdiisii oo la wariyey inay 15% ka weynayd tan dadka caadiga ah,
sida uu sheegay Thomas Harvey oo ahaa saynisyahankii kaydiyey maskaxda. Ha yeeshee 1980yadii ayaa la shaaciyey in guud ahaan la xaday maskaxdii Einstein, middaa oo ilaa xilligaa baaris cilmi ahi ku socotay. 7 FBI-da Maraykanka ayaa 30 sano dabagal ku haysay Einstein. wax yar ka hor intii uusan talada Jarmalka la wareegin Adolf Hitler 1933 Einstein waxa uu isaga guuray magaalada Berlin isagoo degay dalka Maraykanka halkaa oo uu ka shaqo bilaabay macadka daraasaadka sare ee lagu magacaabo Princeton, New Jersey. ha yeeshee taageeradiisii xuquuqda madaniga, afkaartiisii u janjeertay dhinaca xorriyadda hadalka iyo sinaanta ayaa sababtay in FBI-du mil gaar ah ku hayso. wicitaanadiisa ayay dhegaysteen xubnaha FBI-du, waxaana looga shakiyey inuu si dhow ula shaqaynayo laamihii sirdoonka ee Sofiyeetka. balse ugu dambayn baaristaasi waxa ay noqotay mid lagu hungoobay, waxaana xoguhu wariyeen in faylasha baaristii kiiska Einstein oo ugu dambayn la soo bandhigay markii uu dhintay ay gaarayeen ilaa 1800 oo bog. 8 kaalintii nukliyarka ee Albert Einstein. xoguhu waxay wariyeen inuusan si toos ah weligii Einstein uga shaqayn dadaaladii asaaska quwadda nukliyarka. waxaa la sheegaa in si khaldan loola xiriiriyey, balse uusan caadiyan wax luga ku lahayn asaaska hubkan ninkan. halka meel ee lagala xiriiriyey in Einstein asaasay nukliyarka waa isla egtiisa caanka ah ee E=mc2, taa oo sharaxaysa tamarta laga sii dayn karo ama laga ridi karo atomic bombka, balse taasi ma sharaxayso sida atomic bomb loo sameeyo. wararku waxa ay sheegaan in Einstein laga codsaday inuu tago oo door ku yeesho mashruucii Manhattan ee Maraykanku ku dhisay nukliyarkiisa, balse waa uu diiday, waxaana uu marar badan ka digay halista ay aadanaha u keeni karto samaynta quwadda nukliyarku.